كل سلام يا السلام عليكم عيد وناكسن نيو horta muslimiintii waa loo soo galay meel kasta ay joogaan shalay waxa dhacday ciidii ayada lagu tukanay magaalada Addis Ababa ayaa nin booliis ah wuxuu weeraray dadkii tukanayay subxaanallah runtiina waa waxa la yaabo dad islaam oo tukanaya oo salaad ciideed tukanaya in la weeraro waa wax aad iyo aad loo yaabo bal fiidiyoga ayaan wada daawan doonaa ila daawado booliska Itoobiya oo adeegsanayay sunta dadka ka ilmeysiisa ayaa isniintii isku dhac muddo kooban socday waxa ay isaga hor imaadeen dhalinyaro muslimiin ah xilli ay socotay salaada Ciidul Fidriga sida ay arkayeen wariyaasha wakaaladda wararka ee AFP. arrintan ayaa ka dhacday bannaanka hore ee garoonka ciyaaraha caalamiga ah ee ku yaala bartamaha magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa halkaas oo ay muslimiin badan ku xusayeen munaasabadda ku beegan dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadaan. maadaama barxadda gudaha garoonka ay buuxsantay qaar ka mid ah dadka ayaa bilaabay inay bannaanka ku tukadaan gaar ahaan fagaaraha Meskel. xubin ka mid ah golaha sare ee muslimiinta magaalada Addis Ababa ayaa AFP u sheegay in aan la garanaynin sababta keentay isku dhaca. askari ka tirsan booliska ayaa dadka isu yimid ku tuuray sunta dadka ka ilmeysiisa balse uu la kac ma ahayn sida uu sheegay sarkaalkan isagoo soo xiganayay shaqaalaha isxilqaamay ee halkaas ka howlgalayay. askarigii waxaa isla markiiba goobta ka kaxeeyay askarta kale ee booliiska balse dadka ayaa argagaxay qaarkoodna waxay bilaabeen inay ku luuqeeyaan halkudhigyo durbadiina xaaladda ayaa faraha ka baxday. taliska booliska Addis Ababa ayaa soo saaray bayaan ay ku sheegeen in rabshadda ay sababeen dhowr qof ayna keentay burbur hantiyeed hase yeeshee xasiloonidii ayaa dib loo soo celiyey. mas-uul ka tirsan hoggaanka muslimiinta ee Addis Ababa ayaa AFP u sheegay in salaada Ciidul Fidriga sanad walba lagu tukado magaalada caasimadda ah tan iyo markii xukunka lagala wareegay dowladdii Dergiga sanadkii 1990kii. Itoobiya oo ah waddan qoomiyado badan ka kooban shacabkiisa waxaa u badan kuwa haysta diinta Masiixiga halka qiyaastii 30% ka mid ah dadka waddanka ay yihiin muslimiin. كل دي ملك عنصري واجوغا سيدا عاديga waxa laga yaabaa qof cunsuri ah inuu ahaa oo dad tukanaya inuu mataqaana sun indhaha kaga shubo wax aad iyo aad khalad u ah waddankaana 80% waxa weeye waddan Kristaan weeye waxa laga yaabaa marka in ay dhibayso farxadaas iyo muslimiinta meesha isugu tagay inay dhibasaaba laga yaabaa Allahumma najina min an-nar balana كل واحد ويسقرين ويا لقى يابا لكن مش ولا يكحي لكن مسلمين أنا حوجا وين بكذينا وين حين على كل حال وحنا لنا مسلمين تملك استعجوجان الله يسهل عليه فرحتك عيد لما أنتين خير يدرجينا